Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta si weyn uga hadlay arrimo siyaasadeed oo xasaasi ah, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Khudbadda uu jeediyey senatorka ayaa ahayd mid si cad u dhaliilaysa maamulka Puntland, isaga oo ku eedeeyay in ay caqabad ku tahay wada shaqaynta dowladda dhexe. Senator Muuse Suudi ayaa sheegay in Puntland ay ka jirto caqabadda ugu weyn ee keentay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Wuxuu tilmaamay in Puntland ay si gaar ah uga soo horjeedo wada shaqaynta dowladda federaalka, taas oo uu ku macneeyay in ay ku diidan tahay inay ka qayb qaadato shirarka wadajirka ah ee ay qabato dowladda dhexe. Wuxuu yidhi waxa diidan inay dowladda la shaqeeyaan waa Puntland. Shirarka la wada qabto iyaga inay ka soo qayb galaan diiday, cid wax ka qaban kartana ma jirto. Hadalkan ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland, iyadoo ay muuqato in wax xal ah aan weli laga gaarin. Intii uu hadlayay, senatorka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in aysan jirin wax dhaqaale ah oo laga goostay Puntland, wuxuuna caddeeyay in maamulka Puntland uu helo dhaqaale ka badan maamul goboleedyada kale ee dalka. Wuxuu sheegay in Puntland ay hesho lacag dhan 750 oo lagu bixiyo mushaharka shaqaalaha, halka dowlad goboleedkiisa uu sheegay inuu helo keliya 150, Galmudugna ay hesho 250, Koonfur Galbeedna ay hesho 500. Muuse Suudi ayaa sii raaciyay in Puntland ay ka mid tahay kuwa marar badan oo sadboob iyo xaqiraad soo jeediyey, taas oo uu ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in aysan jirin meel loo maro maamul xaqiraad iyo iimaan darro ku dhaqma. Wuxuu si gaar ah u sheegay in gobolka uu matalo ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof, kuwaas oo aan helin xuquuqdooda, balse ah dad nabadgelyo jecel oo shaqo badan. Dhinaca kale, Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa si qoto dheer uga hadlay arrimaha doorashooyinka ee dalka, isagoo ka warbixiyey khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka, gaar ahaan sida loo wajahayo doorashada soo socota. Wuxuu soo dhaweeyey in laga gudbo nidaamka doorashada dadban loona gudbo nidaam qof iyo cod ah, taas oo uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo ay tahay in la isku waafaqo si dalka uu u yeesho hogaamin ka tarjumaysa rabitaanka dadweynaha. Wuxuu yidhi horta doorasho qof iyo cod ayay u socotaa, khilaaf dadka madaxda ka ah dowlad goboleedyada dhexdooda inay ka heshiiyaan ayaa laga rabaa. Hadalkan ayaa muujinaya in Senator Muuse Suudi uu taageersan yahay in la helo nidaam doorasho oo ka hufan kana sharci badan nidaamka hadda jira si looga hortago khilaafka iyo muranka siyaasadeed ee dalka hareeyay. Guud ahaan, hadalka Senator Muuse Suudi Yalaxow wuxuu iftiiminayaa aragtida iyo mowqifka qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqalka sare ee Soomaaliya ee ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Daliisha uu u jeediyey Puntland iyo taageerada uu u muujiyey nidaamka doorashada qof iyo cod ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato aragtida guud ee bulshada iyo hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya. Hadalka Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa la saadaalin karaa inuu saameyn ku yeesho arrimo dhowr ah oo muhiim u ah xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Marka hore, daliisha uu u jeediyey Puntland waxay si cad u muujinaysaa in ay jiraan khilaafaadyo waaweyn oo ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan Puntland. Arrintan waxay sii adkeyn kartaa wada hadalka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee dalka, iyada oo ay suurtagal tahay in Puntland ay ka jawaabto dhaliishaas, taasoo keeni karta in khilaafka uu sii dheeraado halkii laga xalin lahaa. Wada shaqaynta u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa muhiim ah si loo xasiliyo siyaasadda dalka, loona hubiyo in adeegyada dadweynaha ay si hufan uga shaqeeyaan guud ahaan dalka. Hase yeeshee, eedeymaha noocaas ah ee ka soo yeeraya mas'uuliyiinta sare sida Senator Muuse Suudi waxay keeni karaan in wada shaqaynta ay caqabad soo wajahdo. Sidoo kale, haddii aan si dhaqso ah loo xalin khilaafka jira, waxaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelato geedi socodka doorashooyinka, taasoo keeni karta dib u dhac iyo kala fogaansho siyaasadeed oo dheeraad ah. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa loo arkaa inuu yahay hay'ad muhiim ah oo dhexdhexaadin karta khilaafaadka ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Si kastaba ha ahaatee, hadallada ku saabsan khilaafaadka sida uu Senator Muuse Suudi ka hadlay waxay muujinayaan in xildhibaanada aqalka sare ay si cad u qaadan karaan mowqifyo kala duwan oo ku aadan arrimaha siyaasadeed ee dalka, taasoo mararka qaar keeni karta in ay dhaliyaan xiisado siyaasadeed oo cusub. Fikradda uu soo jeediyey Senator Muuse Suudi ee ku saabsan in laga gudbo nidaamka doorashada dadban oo loo gudbo mid ku salaysan qof iyo cod waxay soo jeedinaysaa isbeddel weyn oo ku yimaada habka doorashada dalka. Nidaamka qof iyo cod wuxuu ka tarjumayaa rabitaanka dadweynaha, wuxuuna xoojinayaa sharciyadda hoggaanka la soo doorto. Hase yeeshee, hirgelinta nidaamkan waxay u baahan tahay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo helo deegaan nabdoon oo u diyaarsan doorasho xor ah oo cadaalad ah. Si loo hirgeliyo nidaamkaas, waxaa muhiim ah in la helo heshiisyo siyaasadeed oo ballaaran oo ay dhinacyada oo dhan isku waafaqaan, islamarkaana ay jiraan dadaallo wax ku ool ah oo lagu midaynayo dalka iyo shacabka. Hadallada iyo mowqifyada Senator Muuse Suudi Yalaxow waxay muujinayaan culayska siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan Puntland. Waxay sidoo kale tilmaamayaan caqabadaha ka hor imaan kara geedi socodka doorashooyinka ee Soomaaliya iyo baahida loo qabo in la helo isfaham siyaasadeed oo dhab ah.
iyadoo aan loo baahnayn in eedeymo la isweydaarsado, haddana waxaa muhiim ah in la xoojiyo wada hadallada iyo wada shaqaynta si loo gaadho xal waara oo u horseeda nabad iyo horumar Soomaaliya. Taasi waxay u baahan tahay hogaamin hufan, bisayl siyaasadeed iyo diyaar u ahaanshaha in laga shaqeeyo danaha guud ee qaranka. Khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida Puntland wuxuu leeyahay asbaabo dhowr ah oo salka ku haya awood qaybsiga, maamul wanaagga iyo awoodda dhaqaale ee gobollada. Waxaa si gaar ah u muuqda in maamul goboleedyada qaar ay dareemayaan in aysan helin xuquuqdooda ku aadan awoodda siyaasadeed iyo dhaqaalaha, taas oo dhalisay in ay si isku mid ah uga soo horjeestaan siyaasadaha dowladda federaalka. Isku dhacyada siyaasadeed ayaa la leeyahay waxay sii fogeeyaan isku day kasta oo lagu doonayo in Soomaaliya loo maro waddo nabadeed oo ay dowladdu u wada shaqayso. Waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa in haddii khilaafka uu sii daba dheeraado ay keeni karto ismarin waaga siyaasadeed oo dalka uu kala qaybsamo, taasoo dhibaato weyn ku noqon karta isku dayga la doonayo in dib loogu dhiso dowladnimada Soomaaliya. Sida Senator Muuse Suudi uu sheegay, doorashooyinka qof iyo cod ayaa muhiim ah, laakiin hirgelinta nidaamkan waxay ku xirnaan doontaa sida looga heshiiyo arrimaha ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaa jira walaac xooggan oo ku saabsan in haddii aan la xalin khilaafaadka hadda jira, ay noqon doonto mid adag in doorasho hufan la qabto, taasoo dhalin karta qalalaase siyaasadeed iyo mid amni. Dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan in ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan si ay u doortaan hogaamiyeyaal matalaya rabitaankooda. Hase yeeshee, caqabadaha siyaasadeed iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa ah kuwa xagal daacin kara geedi socodkaas. Inkasta oo hirgelinta doorashada qof iyo cod ay tahay tallaabo loo baahan yahay, haddana waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan sida loo hirgelin karo iyada oo aan la helin isfaham iyo wada shaqayn dhexmarta dhinacyada kala duwan ee siyaasadda. Amniga ayaa sidoo kale ah arrin muhiim ah oo door weyn ku leh khilaafka siyaasadeed ee dalka. Xaaladda amni ee Soomaaliya ayaa weli ah mid xasaasi ah, iyadoo weli ay ka jirto halista ay kooxaha argagixisada ku hayaan dalka. Amni darrada ayaa keeni karta in la carqaladeeyo qorshe kasta oo lagu doonayo in lagu qabto doorashooyin hufan iyo in la hirgeliyo habka loo dhan yahay. Beesha caalamka ayaa sidoo kale door weyn ku leh xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waddamada daneeya Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa taageeraya dadaallada lagu doonayo in dib loo dhiso nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Hase yeeshee, taageeradaas waxay noqon kartaa mid waxtar leh oo keliya haddii madaxda Soomaaliyeed ay muujin karaan hogaamin iyo wada shaqayn si looga gudbo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo dhanka wada hadalka iyo isfahamka ah. Qodobadan soo socda ayaa laga yaabaa inay kaalin weyn ka qaataan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka. Waxaa muhiim ah in la qabto shirar isugu jira dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu raadinayo xalal dhexdhexaad ah oo ku aadan khilaafaadka jira. Shirarkaas waa in ay noqdaan kuwo dhab ah oo aan ujeedkoodu ahayn keliya in la muujiyo wada shaqayn aan miro dhalin. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa in ay ku heshiiyaan hab isla xisaabtan oo cad si loo hubiyo in la wadaago awoodda iyo dhaqaalaha si cadaalad ah. Tani waxay yarayn kartaa eedeymaha ku saabsan in midba midka kale uu xaqiraad u geysto. Beesha caalamka waa in ay sii wadaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya, iyaga oo hubinaya in taageeradaas ay ku xiran tahay horumarka laga sameeyo dhanka wada shaqaynta iyo hufnaanta siyaasadeed. Waa muhiim in la xoojiyo amniga dalka si loo helo deegaan ammaan ah oo lagu qabto doorashooyinka qof iyo cod. Xaaladda amniga waa in si dhab ah loo wajahaa, iyadoo la tayeeyo ciidanka amniga ee qaranka iyo in la yareeyo saamaynta kooxaha nabaddiidka ah. Waa muhiim in hogaamiyaasha siyaasadda ay dib u dhisaan kalsoonida dadweynaha. Tani waxay ku imaan kartaa iyada oo la hirgeliyo hannaanka doorasho ee hufan, loona dhowaado adeegyada aasaasiga ah ee bulshada.